kuwan alle dartiisa u jeclahayow su'aal baan wadaa oo idinku socotaa idinka. miyaad u xiisteen la kulanka alle? miyaad u xiisteen janno cabirkeedu uu la eg yahay cirarka iyo dhulka, taasoo loo diyaariyey kuwa dhowrsoon ee alle ka cabsada? haddaad tahay mid u xiisay allah subxaanahu wa tacaala, sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala wuu u xiisay la kulankaaga. wuxuu yidhi nabigeena muxamed sallallahu calayhi wasallam, qofkii jeclaadaa la kulanka alle, ilaahayna wuxuu jeclaadaa la kulankiisa. allah raxmaanka ah xadiisul qudsi waxa uu ku dhahay, addoomahaygii wanaagsan waxaan u diyaariyey waxaan il arag, dhegna aysan maqal, qalbi basharna aanan ku soo dhicin. soo maahan wakhtigii aan isbeddeli lahayn, soo maahan wakhtigii aan nafsadaheenna ku noqon lahayn oo aan u diyaargaroobi lahayn la kulanka alle, kaasoo ina abuuray marka hore, haddana aan xaggiisa u noqon doonno jalla jalaaluhu. jannada dhexdeeda ma ahaanin murugo, ma ahaanin xaasidnimo, isnacibna ma ahaanin. jannada waxaa ahaaday dhexdeeda nimcad iyo wanaagsanaan. maxaad u diyaarsatay si aad jannadaasi u gasho? hadduu midkood ku weyddiiyo nimcooyinka jannada, waxaad ku dhahdaa waa nimcad lagu daray nimcad, waxaana ugu sarreeya dhammaan nimcooyinkaasi aragtida wejiga allah kariimka ah.